bismillaahi raxmaani raxiim. Halkani waa Kalson TV. Kalson TV waa TV caalami ah oo aad badanaa ka daawataan barnaamijyo wax ku ool ah kuwaasi oo loogu talagalay in wax lagu fahansiiyo ama lagu gaarsiiyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dunida dacaladeeda. Caawa waxaynu doonaynaa inaynu halkii kasii wadno barnaamijkeennii dhabka hadal ee aad aalaaba kala socoteen TV-ga caalamiga ee Kalson TV. dhabka hadal waa barnaamijyo taxana ah oo aanu ku soo qaadano sooyaalka iyo taariikhda ummadda Soomaaliyeed, arrimaha bulshada iyo isbeddelka siyaasadeed ama baaxadda siyaasadeed ee ka taagan geeska Afrika ama Careedeg. Caawa waxaa markii labaad barnaamijka dhabka hadal marti noogu ah gudoomiyaha ama wakiilka arrimaha dibadda xisbiga mucaaradka ee Jabuuti ee ESN Mudane Mahdi Ibrahim Good. Mudane Mahdi ku soo dhawow Kalson TV. waan soo dhawaaday Kalson TV aad baad u mahadsantihiin. waa mar labaadkii maad marti qaadaan Faisal aad baad u mahadsan tahay inigiyo technicianada iyo magartay mas'uuliyiinta magartay Kalson TV ba waanu jecelahay in badan inaan ka qayb galo magartay arrimahaas telefishinada laga waday Soomaaliyeed in arrimaha Jabuutina lagu soo daro oo aad looga waraysaa baan jecelahay. waad mahadsantihiin. waayahay inta aanan u gelin su-aasheeda koowaad waxaan doonayaa halkan inagoo ah dhammaan bahda Kalson TV shaqaalaheeda iyo madaxdeedaba inaan halkan tacsi tiiraanya looga dirno geeridii naxdinteeda ku timid gudoomiyaha baarlamaanka Jabuuti asbuucan gudihiisa. waxaan u tacsiyeenaynaa shacabka iyo dowladda Jabuuti iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed iyo dadka reer Jabuutiba ayaan halkaa uga tacsiyeenaynaa. intaa kadib su-aasheeda koowaad Mudane Mahdi waxay tahay maadaama aad tihiin xisbiga mucaaradka dalka Jabuuti ahna xisbigiisan xisbi aad u awood badan, bal in aad wax yar tafaasiil naga siiso heshiisyada ay dowladda Jabuuti badanaa la gasho wadamada caalamka kii ugu dambeeyay ee dowladda Itoobiya la gashay oo kale. waa maxay xisbi ahaan halka aad ka taagan tihiin ama waxa aad kala socotaan heshiisyada caalamiga ah ee dowladda Jabuuti ay la gashay dowladda Itoobiya? gaar ahaan Jabuuti horta waa dal yar oo isagu magaratay aad u kooban, ummadiisuna aad u kooban tahay, dhul ahaan deegaan ahaan aad u kooban. habase haatee waxaan jecelahay dalkaasi inuu horumar gaadho oo haddii uuna munaafacaad lahayn xiriirka iyo meesha uu ku yaalo positionka uu ku yaalo qaarad ahaan inuu uga faa'iideeyo dalalka jaarka isna ka faa'iideysto oo ummadda milyuun ka yar inay magaratay munaafacaad ka soo bixi wada gaadhaan. xiriir gaar aan la leenahay dowladda Itoobiya. waxaanu leenahay waqtiyadii gumaysigu soo degay xaggaasoo xadiid looga furay magaratay gaadhay ilaa magaratay Addis Ababa caasimadda. xiriir adu si kastaba magaratay u danaha gumaysigu ahaa waqtiyadii soo dhaafay 150 sano dabeedna moogtahay waxa weeyaan in wixii bahalkii ka sii socday. xiriirkayga dhaqaale waa xiriir isku xidhan oo munaafaca wax yar la cunayaba raashinka yarinta badan Itoobiya nooga yimaada xawaash noqotay magaratay waxyaalo badan noqotay ummad badan oo Soomaaliya ama Cafara ama cid kale oo magaratay reer Jabuutina originadoodu waxay yihiin magaratay ama dhulka ama Soomaaliya yihiin ama waxay yihiin magaratay Itoobiya. waxaan xiriir la leeyahay dhaqaale marka xooga inta dambe uu si xoojismay iyadoo magaratay Kooraankii magaratay Nile-ka Itoobiya mara isaga munaafacaadkiisa ah dab la nooga soo qaado Koorantada. waxaa kaloo jirta biyihii webigaas magaratay badda uu ku dareeyay oo la noo soo weeciyo magaratay la noo soo aduna soo bobgareeyo oo na soo gaadhay si ummadda Jabuutina u haraad baxdo dalku biyuhu gaadhaan. iyaguna waxay u baahan yihiin boorkayga Jabuuti oo boor caalami ah oo magaratay wixii ay u baahan yihiin dibadda ay ka keentaanba ay u marto. marka faa'iido weyn ayaan isku qabnaa labadeeda dal. heshiiskan imika xiriirkan cisho dhowto uu saxay dowladda Jabuuti iyo dowladda Itoobiya saddex cisho joogay madaxweyne ku-xigeenka ama prime ministerka Itoobiya Hayle waxay ka mid tahay taan bay daba socotaa xiriirada daba socotaa. waxa la soo dhan karaa su'aal la isweydiin karo ma faa'iido ay nagu jirto ma inaga khasaare ku jooga ma inaga faa'iido ku jooga mise faa'iido ku jooga. taasi waa dood kale oo magaratay waxay ku xidhan tahay miisaaniyadii baayac mushtari halka labada dal ay kala joogaan. takada dal luq wada manihin annaga waxaan nagu filan magaratay in boqolka milyuun oo Itoobiyaan wixii ay u baahan yihiin bay'oo gaarsiino wixii ay qiimo noo tahay aan ka hadno oo labada dalba ay ka faa'iideystaan. haddii ilaahay yiraahdo dhinacan Soomaaliya uu furmi doontaa marka development fiican iyo deegaanasho la gaaro haddii la
waayahay taa haddaan intaa kaga sii gudubno waxaa jira dad badan oo soomaaliyeed ama bulshada soomaaliyeed waxaysan xoog uga dharagsanayn waxqabadka dhabta ah ee xisbiga ESN ee mucaaradka dowladda Jabuuti uu qabto haddii noqoto dibad haddii noqoto gudaha inkastoo hadda ka hor aanu halkan kaa wareysanay waxqabadkiina aad wax ka shanqarisay balse dad badan weli waxaa jira ka gows adeegaya oo leh mucaaradku wax ay u qabtaan ummadda ama wax ay u soo sidaan ma jirto annaga dowladda ayaynu mar walba aaminsannahay waxqabadkeeda su-aashaasi dadka qaba sideed oga shaafin karaysaan waxqabadkiina dhabta ah ee aad hooyada suuq daqsiilo fadhida ama hooyada xumbuli ku nool ama hooyada kartoon ku nool xaafadda kartoon ku nool ee aanan adeega haysanin caafimaad ee aanan haysanin adeega waxbarasho dhab aan haysanin hooyooyinkaas ama aabbayaashaasi ama caruurta deegaanadaasi aadka maaragtay dadka liita ay ku nool yihiin waxa aad ku beer laxawsan karaysaan ama aad ugu beer qaboojin karaysaan ama aad u ballan qaadi karaysaan oo dhab ah maxay tahay oo aad bulshada usoo badhaamin karaysaan waa run been kuu sheegi maayo faysalow horta waxa weeyaan ummaddan ina been la shooga ma kuwa sidaa lehina waxa weeyaan kuwa tiradoodu yar tahay waayo bulshada Jabuuti maalintii dhugatay la codeeyay 2013 aad bay u soo banaan baxeen aad bay u taageereen mucaaradka aad bay u garab taageen boqolkiiba 80 iyo ka badan habase haatee dowladda Jabuuti maalintii gobonada la qaatay ilaa maanta baarti qura ka taliya dalka baartiga qura ka taliyay munaafacaad badan waa la soo geliyay macaawino badan oo adduunyadu keenay way jirtaa dal yaro 800 oo kun umadiisu tahay wax la gaarsiin karaa maanta way ka soo baxdaa munaafacaadahan daboolka Jabuuti habase haatee mucaaradku weli talo ma uu qaban ama si wax mas'uuliyado maamulo dal gacanta Muusaalin balance wuxuu ku qaadayaa in war sida loo magaratay loo maamulayo dalka ee dhaqaalihiisii magaratay ayna ummadda la wada gaarsiineen ee ummadii maanta boqolkiiba 70 ay dhibaato qabto iyadoo ognahay boqolkiiba 60 wax ku dhow waa haween horta ummadda Jabuuti boqolkiiba 6 iyo 50 waxa weeyaan magaratay dhalinyaro u badan boqolkiiba 30 jirka yar oo maanta bilaa shaqaa jaamacado way jiraan jaamacado ka soo baxaan marka waa in magaratay oo anagu waxaan leenahay program political program baan programkaas waxa weyn munaafacaadka dalka ka soo baxay control lagu hayo in corruption ka la yareeyo iyo ama se baliliqada dalka magaratay dhaqaalihiisa la baliliqaysanayo waayo dhibaato badan ay keentay oo ummadii baa kala tagtay boqolkiiba 70 waxay ku nool yihiin inaad aragtay moogtahay mooyaan qoraaladan ama si xisaaban soo saarto UN ay soo saaraan ee la yiraahdo indice de pauvreté baa la wax weyn imisa ummadda gaajad u haysa ama noloshooda maalintii ku soo haaga $100 $1 imisa ka yar Jabuuti waxay maraysaa maanta dhowr boqolkiiba 45 inay magaratay dhibaatadoodu halka taagan tahay moogtahay aadna way culus tahay waxa la sheegay 250 kun oo ummada oo Jabuuti inay poverty-gii u hoosaysa ku jiraan taasina mucaaradku wuxuu ka bogsiinayaa bulshada wuxuu leeyahay anagu diyaar baan u nahay maamulka markaan qabanno in program dano dhaqaale ama magaratay dhakhtar ama si cilmi barid education inaan magaratay in gaarsiino waxa wacay dhibaatada maanta taala taliska meesha jooga oo mid uuna oo isbedelin min gobonimadii ilaa maanta marka waa ballanka waxa qaaday wax laakiin anagu maanta gacanta lagu hayno bulshada leenahay waxa baan inii haynaa waxana waan inii qaybinayna waxana waan gaarsiinaa ma jirto wali gacanteedii ma soo galin waa rajaynaa gacanteena soo gasho insha Allah waayahay inta haddaynu kaga sii gudubno inkastoo barnaamijkii aanu dhexda kaga jirno dadweynaha iminka nagu soo biiray waxaan u sheegaynaa inaanu halkan caawo qaybtan dhabka hadal aynu kaga hadlayno arrin ku salaysan dowladda Jabuuti waxaana marti mudane Mahdi Ibrahim Good oo ah wakiilka arrimaha dibadda xisbiga mucaaradka ESN su'aasheeda saddexaad haddaan u gudbo mudane Mahdi waxaa jira dhawaan waraysi la yeeshay madaxweynaha dowladda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo la yeeshay jaraa'idka liyaado John Afrique kuna soo baxa afka Faransiiska su'aalaha uu weydiiyey tan ugu horeyso ayaan doonaynaa bal inaan wax ka weydiino su'aashaas oo ah maxay wax laga weydiiyey qaabkii ay loo heshiiyey oo doorashadii ay u dhacday oo ay u wada hadleen mucaaradka iyo dowladda mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo su'aashaasi ka jawaabaya marka la weydiiyey yaa maxaa idin fududeeyey inaad isu timaadaan ama aad wada hadashaan waxa uu ku jawaabay sidan soo socota waxa uu sheegay in ay doorashadii 2013 dhacday ee ahayd mid lama filaan ah xagga dowladda iyo xagga mucaaradka dabcan mucaaradka wuxuu ku sheegay wuxuu yiri waa markii ugu horeysay ee aynu aragno
koox shiiqyo ah ama mushiiq ah oo ku ekeyd masaajidda inay usoo bambaxaan siyaasadda oo ay damcaan inay loolanla galaan dowladda uu muxaafidka ah oo markaa uu madaxweyne ismaaciil cumar geelle mas-uul ka yahay. madaxweynuhu wuxuu ku tilmaamay raggaasi mucaaradka inay yihiin dad aanan siyaasadda ugu bisleen ama siyaasadda inay soo galaan aanan ku habbooneen. arrintaasi ka mucaarad ahaan sideed u aragtaan? horta waa mide madaxweynuhu wakti aan loo baahnayn buu horta jariida war siiyey. hadduu siiyeyna waxaan u arkaa tu fidnadaan u arkaa. warkaa uu bixiyey tu fidnada oo ummadda Jabuuti inuu kala kaxeeyo ama si ku kala dilo u dhibaateeyo nabadda iyo wacayaan fiya habase haddee tan uu jawaabtiisa uu bixiyey sidaa maaha oo sidaana ma garatay diintuna ma tiraahdo dhaqankuna ma yidhaahdo dimuqraadiyadda adduunkuna ma tiraahdo. qofku diintu doonu haysan karaa, jinsiyadu doon noqon karaa, dhidig iyo lamudku doon noqon karaa, laakiin mowqaf siyaasadeed wuu yeelan karaa. mowqafka siyaasadeed nina looma diidi karo. ya biniaadmiga ilaahay abuuray waa wuxuu inagu kala duway xawayaanka ma garatay waxa weeyaan ilaahay samac iyo basar buu ku siiyey markaa waxaabay kamid tahay ayay kamid tahay ma garatay mowqafka siyaasaduna kamid tahay. ilaahay ma qasbin dee sheekha kuma qasbin inuu ma garatay miskiidun ku ekaaday iyo kitaabku ku ekaaday inuu mowqaf siyaasadeed ama garaadkiisu siiyey inuu wax jeclaado ama iska dhaxarko uma diidin dee kitaabkuna uma diidin sharcina uma diidin. ismaaciil hadduu isagu taaleeyahay dee waxaan marayaa khalad weyn iyo gaf weyn wey. ragga musheekhda ku sheegay musheekh way iska ahaayeen waa dad muslimiin salaad iska tukanay sida dadkii dhaqankeena iyo diinteenuba tahay habase haatee mowqif siyaasadeed bay lahayn. mid qura isbedeshay laakiin kala hore 2013 ta qura isbedeshay waxa weeyaan doorashooyinkii hore system waxa jiray majority la dhaho hadduu kursi ku dheeraado talisku uu ku wada shubanayo kuraasida. doorkan dhaweyta waxa la geliyay wax yar oo qiyaas miisaaniyad uu iska samaystay isagoo 20% inaad xusan tahay mooyaan doorashada 2 cisho horteed buu ka hadlay telefishinka wuxuu yiraahdaa haddii shicibku ii footeen waayo oo uu uridi waayo RBB ya doorashadaas mid maaha iyadoo sidii uu ku dhawaaqay 80% ummaddu waxay u sheeg footeysay USN. hadduu isagu leeyahay USN doorashadaas ma garatay musheekhda ka qayb gashaa u keentay waxan ya waxa weeyaan de haddii markii hore musheekhda ay iska joogtay RBB laakiin ma ahayn mowqafkoodu way sheegin jireen wala bilaqaysan jireen oo codka majority-ka ku qaadan jiray maanta meel bay soo taageen oo 20% ka soo saaray wiil ma garatay inta helaan baa lagu ku qaadan doonaan ayay wada raaceen. tiina waxay muujisay in ma garatay laga badiyay oo 80% ummadda Jabuuti jiray RBB waan ka daalay waxaanu dooranay doorashadan soo imika dhacaysa USN iyaan dooranay uma arka rag ma garatay dhibaato keenaya wadaniin baan u arkaa mowqaf leh meesha ay jeclaadeen istaagaan ay iska dhaxarkeen istaagay wax loo diidi karana maaha waana macquul ma garatay qofku inuu ujeedadiisa sheegto meel ka soo jeedo. waayahay weli waxaan ku jirnaa su-aashii koobaad ee jawaabteeda ka bixinaya madaxweynaha isagoo hadalkiisa sii wada haddana waxa uu yidhi waxaa jirtay ayuu yidhi in caasimadda waxaa lagu dooday aqlabiyadda codka dadka xisbiga markii doorashadu dhacaysay SN inuu aada ugu xoog weynaa ama codka ugu badan oo caasimadda ka helay. taasi dowladda Jabuuti way dafirsan tahay. waxa uu hadalkiisa sii raaciyay waxaa jirtay in xildhibaano kamid ah ESN ay tiro 3 goor diideen in iyagii madaxweynaha ama iyagii iyo xukuumadda ay wada hadlaan. taa maxad ka leedahay iyadu? way dhacday dhowr jeer isku soo dhawaaday mar kala hore oo markii uu tagay magaalada la yiraahdo nabadda iyo isku soo dhaweynta ummadda Jabuuti ay sameysay dakhil la yiraahdo ayuu ku khudbaday. marka horeba ma garatay mucaaradku wuxuu yiri kelmad uu leeyahay shawaadiin baa ku dhex jirta buuri waan heshiin lahayn shawaadiin baa ku dhex jirta meeshuna kala taxinaysa ma shawaadiin ma jirto shawaadiintu maybe iyaga xagooga inay joogaan ma filayo laakiin xaggayga inay jiraan waayo xagga dad bisil baa maamula oo intaas sano soo mucaarad ahaa oo ma garatay isku kalsoon oo ujeedadoodan ma garatay u halgamaya oo cisho walba dhexda u xidhan oo u dhibaatoonaya ama la xidho ma garatay ama siye hala jirdilo ama siye cadaadis kaloo kooraan ka goyniyo telefoon ka goyniyo biyo ka goyniyo mishaar ka goyniyo waxaas oo dhan dowladda Jabuuti way yeeshaa haddana ma cabtaan raggaasi way sii adkaystaan way sii wadaan. waxaan leeyahay sidan uu sheegaya maaha Jabuuti qura kama helin magaalada Jabuuti caasimadda Jabuuti dakhil waa ka helay kuraasidii waa la qaatay cali sabiix waanu ka helay waa la qaatay oo waqtiyada totally waaba la diiday raggii namatay raggii doorashada uga qayb galiyay ee ka codeyn lahaaba ururkayga uga qayb galiyay iyaga way xidhnaan maanta la footeynaya markay tageen meeshii ee shicibkii u tageen iyaguna soo coday lahayn waaba la xidhay kuwii noo ilaalinayay sanduuqana waa la xidhay soo garmis tajoora saas laag
marka habase ahaato waxaa annagaa jeclaanay marka in dalka haddii dhibaata ka dhici lahayd in nabad lagu helo adduun weynihiina uu nagula teliyey oo wuxuu yihi wareedha waxaa dalkan dhibaatada geeska africa taagan dab baa meel kasta ka dhacaya waxaa habboon inagoo dal yar baa tiinay wixiina ilaashada oo heshiiya tii baan markaa isku daynay dacwadaydi waxaan dhignay afrikada guddida la yidhaahdo magaratay nabadda magaratay maaska soo dhaweynta magaratay siyaasiyiinta dalalka intay dhibaato ka dhici lahayd sii daweeyo wax ama sii ka daba tego wax sida dowladahan dagaalku ka socdaan guddidaas dacwadeeda waan dhignay resultkii waan dhignay wixii ka soo baxay natiijadii ka soo baxay doorashada oo anagu hayno qoraal ku hayno isagu ma hayo ma soo dhigin wixii oo dhan waxay keentay markaa inaan isku soo yar dhawaano labadii jeer ee la sarkayna iyaga xaggooda ay ka baaqatay kama baaqan xagga iyaga anaa ruu kuu sheegaya nin aadan maxamed cabdullahi oo baartiga ku jira oo vice president ayaa tegey oo la wada kulmeen ballankii uu qaaday kama uu daba iman markay sarkeen halkii baa lagu sugayey ismaaciil geedi xareed wuu ka hadlay mar labaadkii ay sarkeen wuxuu yidhi war ninkan waan saragnay ballan baan wada qaadanay ballankiisaa kasoo jawaab waayey waana sugaynaa oo waxaan yeelaynaa weli soomaalidu waxay ku mahmaadaa kaadi badani waa loo gogol badiyaa bal waxay uu ka la yimaado yaan eegaynaa sidii bayna ma gartay labada intaa jeer u baaqatay dabadeeto markan daweyto ay furfurantay oo waad keentay dee saxiixii 30 December sanadkii markaan dhaafay in wax la kala saxiixdo mucaarad iyo dawlad waa ka baxay waayahay isla qaybtii weli ku guda jirnaa waxaad soo qaaday Ismaaciil Geedi Xareed runtii madaxweynaha isagoo ka jawaabtiisii ama su'aashii koowaad la weydiiyay weli ka sii araaranaya ama sii wado waxa uu sheegay Ismaaciil Geedi Xareed inay kulmeen 7 February ama 7deedii 2014 sanadkiina weydaartay Ismaaciil Geedi Xareed oo markiis oo uu ku tilmaamay madaxweynaha inay sinis arag muddo 18 sano ah marka is arkayaanna waxay isku arkeen arrin dhaqan ah oo inan uu Ismaaciil adeer u yahay ayaa wuxuu gabar ka soo doonay madaxweynaha halka wuxuu ku cadeynaya madaxweynaha arrintaasi is araga qaybka dhaqameed ay u wada kulmeen marka laga tago arrinta isku soo dhawaanshaha in ay safiirka Faransiiska uu la kulaha ama safiirka Faransiiska soo dhameeyay taa maxaad ka leedihiin ama maxaa marqaati ah waxa weeyaan soo labadii sababood heero shir bangartay nabadda uu ku diiday Ismaaciil Cumar taa isaga ugu talagalay waayo waxaan waa waxa qofku garaad liba si ka fahmayo marka aad akhrisato markan wuuna iska sii ogaa wiilkan iyo gabadhan isdoonayay inay isguursan doonaan ama maalin ay isku iman doonaan waxa aba dhaqameed u noqday dee Ismaaciil Geedi Xareed wax caadi weeyaan gabadh waa la doonaa xoolo waa laga bixiyaa waana lagu guursadaa isagoo halkan sheekada markaad dhegeysato cayn isku xidhayaad moodaa siyaasadii iyo arooskii uma maleeyo inay wax isku xidhan yihiin habase haatee Ismaaciil Geedi Xareed fursad bay u noqotay isaga laftigiisana fursad bay u noqotay isku soo dhawaasho reerun maaha ma guur dhex dhacay in ma garatay bal hadda nabadii la wada raadiyo Ismaaciil Geedi uu la hor yimid mucaaradka wuxuu ka yidhi aanu keligii kama taliya meesha rag baa ila talada ilaa waa kula noqon doonaa wuu nagula soo noqday waa laga dooday waxaa loo arkay macquul in haddii ay taasi jirto fursad kale la siiyo oo saddexaad Ismaaciil Cumar fursadii saddexaad ee la siiyey qoraal baa lagu sameeyay Ismaaciil Geedi Xareed wuu la tagay madaxweynaha muddo haddana sii raagtay habase haatee way furfurtay wax badan bay furfurtay oo waxay keentay heshiiska la saxiixi doono bishii 30 December iyadoo in badan muddo dadku had iyo jeer si sidaca ay ma garatay mucaaradka ku hayeen ilaahay war meesha natiijo ma jirtay rajana ma jirtay ma iska deysaan oo ma garatay nagu fasaxdaan han mudaharaadkayga badsano han buuqa badino oo mucaaradku lahayn may loo baahna dalku inuu tan Faransiisku sheegay Faransiisku kaligi ma ahayn Faransiisku markii arrinka la ogaaday ma garatay madaxweynihii ku diyaar yahay way la hadleen mucaaradka iyagu ma aha European Union ka kamid aha waxa kamid aha ma garatay dawladaha Afrika guddidaas waxa kamid aha Mareykanka oo jeclaaday iyaguna in ma garatay nabadda ay ma garatay gardaadiyaan ya oo ay hareer galaan oo la yiraahdo madaxweynuhu waa fiican tahay sida dadku isku wad mucaarad oo inaguna inta ka yimaada halkaan isku yimaada aadna u garab galeen rajana waan ka qabnaa maanta ma garatay inay wali fuujignaadaan ninkan wuxuu ku hadlayo madaxweynaha Ismaaciil Cumar in wax ka duwan wixii meel la wada dhigay inay tahay iyaan maanta rajaynayna waayahay weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkeena dhabka hadal qaybteena kaga hadlaynay ama caawu ku wareysanay mudane Mahdi Ibrahim Good oo ah wakiilka arrimaha dibadda xisbiga mucaaradka ESN waxaanu ku guda jirnaa
john afriq jaraidkii madaxweyne ismaaciil cumar geele wareystay su-aasha labaadee la weydiiyey waxay ahayd qaabka ay doorashada u dhacaysa ama madax banaanida doorashada ayaa wax laga weydiiyey oo inay diyaar u yihiin in loo madax banaanaado inuu mucaaradka si toosa doorashada uga qeybgeli karo. dabcan madaxweynaha su-aashiisii waxa uu kusoo koobay sida tan ama jawaabtiisa. madaxweynuhu wuxuu sheegay in arinta guddiga doorashadu diyaarinteeda iyo maareynteeda iyo intaasi keliya ay ku ekaadaan, balse doorashada cidda sheegaysa ama natiijada doorashada cidda ku guuleysatay inay tahay wasiirka arrimaha gudaha dowladda Jabuuti oo ah isla yani dowladdii ka tirsan muxaafidka ka tirsan. sidee suurtagal u tahay wasiir ka tirsan dowladda inuu isaga maaragtay noqdo ruuxa sheegayo natiijada maaragtay kama dambaysta ama mucaaradka codka uu helay ama muxaafidka uu helay? sidee taasi wax suurtagal u noqon karaysa xaggeena sideesa looga arkaa? horta inuu taa position ka qaato ama si meel iska taago madaxweynaha uma khuseysaba. waxaa jirta qodobo badan oo markii hore aan qornay oo dabadeed markii doodii badatay aanu ka tagnay. waxaa soo haray dhowr qodob oo ay kamid tahay tan magaratay guddidan madaxa bannaan ee doorashada iyo ta xuquuqaha baartiyada magaratay mucaaradka ah sharci ahaan loo mariyo baartiyadu siday u jiri karaan, siday u maamuli karaan wuxuuga, sida ay uga qayb gali karaan magaratay wixii tartana ama se isku nidaamin karaan ama sida ay albaabadan magaratay dowladdu leedahay dowladdu shicibka leeyahay. waxaan dowladdu leedahay wax shicibka TV-ga noqotaya, radio-ga noqotaya, mudaharaad noqotaya, maamulka noqotaya ay u samaysan lahaayeen khudbado noqotaya waxyaalo cankaas loo sharciyeynayo. qodobkan haddaba uu soo qaatay isagoo aan jawaabtiisaasi aanay habbooneyn, waayo jariidan markan ku hadlayo waxaa imka hawshii ku jira ilaa maalintii 30 December ilaa maanta ilaa bisha 21 waxaa shaqada ku jira laba guddi oo qayb dhinacayaga, afar dhinacayaga iyo afar dhinac baartigiisa iyo masiix xukuumaddiisa baarlamaankuga soo galmaysa qaybta baarlamaankiisa. labada guddi baa labada qodob isla eegayay oo si sharciyan u qorayay kana doodayay soona bandhigi doono baarlamaanka keeni doona ummadana horeysiin doona. hadalkan uu ku hadlayay John Afriq uma habbooneyn afduub ayuu ku qaadanaya yaa saan arkayo waa afduubaya shaqadii raggii loo diray mas'uuliyiintii inuu afduubo uu isagu ka jawaabo iyagoona hawshooda dhamay. waxay taasi keenaysaa dhibaato inuu guddidii hordegaba natiijada laga sugayay hawshoodii waxay ka soo qabteen iyo waxay soo bandhigeen wuu degdegidee bilaa garaada maaha wagadi uu talagalay oo ma garatay fidnad inay dhalisaa dhibaato inay keento heshiiska ay burburiso ugu talagalay. annagu waxaan leenahay taama ogolin waan sii wadaynaa ma garatay haddii uu isagu u badheedhay waxaan u maleeyaa mas-uul darro weeyaan ma garatay. waxaan leenahay ururada mucaaradku waa mas-uul bay ummadda ka yihiin, wixii ay u dirteenna way u wadayaan, nabadaana waan wadaynaa, halkii aan ku dhamaynayna maalinta ay soo baxdana bulshadan horkeena doonaa weysiin doonaa. tan haddaba uu sidaa leeyahay sida uu adduunkaba ka jirtay inay khalad tahay waad ogtahay nin baartigiisa ka tirsan oo dowladdiisa ka tirsan inuu sanduuqana u hayo kuna dhawaaqo natiijada ka soo baxday waa khalad weyn. maxaan anagu qoraalka ku kala samaysan waxaa qoraalka ku kala samaysanaa kuu sheegayaa la saxeexay oo prime minister ku saxeexay annaguna saxeexnay Axmed Yuusuf Maxamed uu saxeexay in la sameeyo guddi ka madax bannaan dowladda iyo mucaaradkaba oo qaybina tahay isleeg soo doortaan iyagu annaguna qayb isleeg soo doorano oo guddida hadda ilaalinta waxa weyn doorashada. labada group markay isku yimaadaan laga dhex doorto ama si dibadaba laga soo qaato qof labada ururba ay ku kalsoon yihiin oo wadaninimadiisa iyo sharafnimadiisa iyo taariikh ahaan dee qof ma garatay mas-uuliyad qaadi kara uu yahay ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo uu guddoomiyo oo qoladaasi kooxdaasi guddidaasi diyaariso doorashada min bilowga ilaa dhamaadka. tan uu isagu sheegayo dee tii hore waxba kama duwana ee ma garatay lagu biliqaysan jiray ma garatay doorashooyinka. taasina anagu ma ogolin baan leeyahay ma dhex dhici karana maaha, waayo adigoo ku jira baartigii madaxweynaha aniga kama noqon kartid ma raali gelin kartid oo kuguma aamini karo inaad waxayga hayso ood ii ilaaliso. ma ila fahamtay? sidaa weeyaan wax socon kara maaha. isaga diidan markaa guddidiina mu wadayn wixii aan kala seexnayn oo ku hor yimid.
waayahay waxaa jira oo ay in badan dadku isweydiinayaan xisbiga ESN ee mucaaradka Jabuuti maadaama uu yahay xisbi awood badan inta badan waxaanu maqalnaa inaad shirar ku qabataan wadamada dibadaha khaasatan Yurub ama America dad badan waxyaabo isweydiinaya waxaa ka mid ah ESN ma laga yaabaa in ay ama dan ugu jirto ama ay u fiicnaan lahayd inay xafiisyo ka furtaan dowladaha jaarka Jabuuti la sida magaalada Muqdisho ee xarunta ummadda Soomaaliyeed magaalada Addis Ababa ee Jamhuuriyadda Itoobiya ama magaalada Nairobi oo kale dad badan ba taas weydiinayo maxaase idinku xisbi ahaan talada ama dadka ay fakarkoogaasi la hadlayo ee isweydiinaya arintaasi idinku sidee u aragtaan diyaar samootin inaad ka furataan xafiisyo magaalooyinka aan soo sheegay iyo wadamadan soo sheegnay sida adduunweynaha ka jirtaba horta wax la samayn karo waayo waxa weeyaan inta badan markaad Yurubtan joognaba eegto moogtahay xiriirdo badan been ururada mucaaradka Soomaaliya Labourku waxay leeyihiin Parti Socialist Faransiiska ama siye magartay PhD-ga Jarmalka xiriirdo waa la samaysan karaa mid baa se jirta sharciyan baardiyadu kama furan karaan dalal kama furmi karaan iyagoo baardiya waxay furan karaan oo laakiin guud bay wada samaysan karaan dawladda kuwa dalka ka dhex samaysan karaan kuwa dalka jooga kala samaysan karaan laakiin waxay samaysan karaan wax la yiraahdo urur koox oo kale oo official ka furan karaan wayna anagu ma kama horjeedno waxay ku xidhan tahay dhaqaale horta Soomaaliya iyo xidhiidh lala sameeyo ma garatay dadka ama dawladahaas si iyaguna ay u arkaan inay wixii cadaalad hadii laga shaqeeyo ama geeska Afrika looga baahan yahay cadaalad in la ogolaado mucaarad iyo muxaafidba inay official ku yeeshaan dhulkooda oo iyaguna ummadooda xagga joogta ama degan ama si jariidaha ama si media ama garatay ay ka qayb gelin karaan hawlaha ka dhacaya dalka Djibouti si iyagaba ayaan la ogaan karno wixii ka dhacaya dalka aan joogay ma garatay representative ay u joogi lahayn waa positive hadii ma garatay ay hirgal karto waa waxa ka fiirsan doonana ka ahaan Yurub uma ka qabanay iyo Mareykanka soo sheegayso laakiin wali uma nujeesan Afrikado inta badanna dawladda wali aan u aad u bisil maaha dhibaatoodu iska badan tahay riskigu aad u badan yahay waayahay dabcan waan dareemaynaa run ahaantii waxa kale oo doonaynaa ku weydiiyo inagoo ku sii siqayna gabagabadii barnaamijkeena maxaa hortaagan mudane Mahdi aragtidaada ama aragtida xisbiga ESN maxaa hortaagan xisbiga ESN mucaaradka ah iyo xisbiga dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele in ay si wada jira u soo dhisaan dawlad wadaag ah sida caalamka ka dhacda oo u danaysa dadka iyo dalka reer Djibouti maxaa taa hortaagan maxaase lagu gaari karayaa wadada isfahan ee dhaqan iyo dhaqaale ee soo dhaweyn karaysa muxaafadka iyo mucaaradka inay dawlad wadaaga dhistaan dabadeedna saad sheegtay dalka waxaa tiri boqolkiiba 60 markii qiyaastii waa haween baa tiri dhowr iyo 30 waxaad ku sheegtay dadka ku nool in dad daayir yihiin oo bilaa camal uu jiro si dadkaasi loogu faa'iideeyo ma la oran karaa ama maxaa hortaagan in isfahankaasi uu ina dhex maro oo aad sameysaan dawlad wadaag ah mida ku sheego Faisalow intaasoo dhowr 20 sano horta waa ku jira siyaasadda waana ku soo jira mucaarad iman saxiixii horeeyay ama nabadii horeysay saxiixnay ma aha tan waa tii malaha Ismaaciil Cumar wuxuu saxiixay waa tii afraatan iyo noqonaysa tu qoran iyo tu aan qornayn baa jirta laakiin wixii qoraal lagu saxiixay waa tii saddexaad la saxiixay intii jeerba dawladdu ku meel gaara hadii uu doonayo uu la dhisi lahaa oo wadka mucaaradka uu gooni u leeyahay uu la saxiixi lahaa wax ama dawladdu laakiin maxaa loo heshiinay waxa weey waxaan dadku u dagaalamayaan ama horgamayaan ma aha dawlad ka mid noqda waxa weyn war dawlad caafimaad qabta oo ummadda u adeegaysa oo mustaqbal u wada ummadda oo ma garatay u socoto horumar ummadeed bulsho iyo dalba in laga qayb kalo waa mid horta laakiin ummaddaasi salkeedu maxay tahay iyo dalkaas ama dawladdaas salkeedu maxay dawlad cadaalad jirto haddii aanan baa garatay maxkamadii ka madax banaanayn xukuumadii sare haddii baarlamaanka ka madax banaanayn xukuumadii sare haddii noloshii wixii yaraa kooraankii biyihii ka madax banaanayn ma garatay dawladii ama si xukuumadii sare dhibaatadeeda leedahay minka wasiiru noqonaya marka tariskaasina de dhibaatadii sii biiriyo ama si maqaar saar uu sii ahaado un mooyaan wax uu soo kordhinayo bulshada ma jirto diyaar way yihiin rag badan way ka qayb galeen way dhacday in laga qayb galo saxiixii horeeyay nabadii jabadii la tabay qayb fruudka ahaan jirtay
dee 2 wasiir buu ku daray baarlamaanka uu ku daray 12 maxaa soo kordhay raggii way baaba'een ba maanta baartiyadoodii haba se ahaatee waxa may soo qaban wax alla waxay u qabteen bulshada ma jirto imikadan magac ahaan bay ugu dhex jiraan isagayna aqoondan ay isku dallada yihiin oo kale UNB la isku yidhaah laakiin waxa weeyaan sanduuq faaruqada iyo meesha joogada mid iyo laba garab jooga isaga mooyaane wax kii way iska kala yaaceen ummadii bulshadii marka waxa weeyaan anagu waan jecelahay haddii la dhisi lahaa oo si daacada loo noqon lahaa in horta la hirgeliyo wixii salkii horta cadaaladda dhigay iyo madax banaanida inta orgaan ee dalku ka tirsan yahay ma garatay maamulka cadaaladda baarlamaanka waxyaalo badan oo bulshada ma garatay warshadaha dawladda oo ma garatay tan korontada tabiyaha waxaas oo dhan waxaana ku dawladda gacanta ku haysa wixii adu necessity-gii ugu yaraaye bini aadmigeeda ma garatay ummadda ku noolayd bulshada ku noolaan lahayd wixii ba gacantiisa ku jiraan waayahay haddaan taa kaga sii gudubno dabcan waxaa jira su-aal isla John Afriq jaraa'idkaasi oo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelo weydiiyey su-aashaas oo ahayd ma laga yaabaa inaad ka dhaadhacdo yani madaxtinimada haddii aad damacdo inaad ka dhaadhacdose ma jiraan dad aad u diyaarisay in ay hawshaasi qabtaan dabcan waxa uu ku jawaabay haa waxaa jiro dad aan u laylinay ama aynu barnay hanaanka dowladnimo ama haykalka dowladeed siday u samaysan tahay dadkaasi oo madaxweynuhu sheegayo ka mucaarad ahaan miyaynan xaq u lahayn inaad wax ka ogaataan cidda yihiin haddaad se og tihiin ama yidana ogeyn yaad ku tuhunsantihiin yaad soo malayn karaysaan inuu awla jeedo horta warkaa muu caddayn adoo iga raalli ah warkaa muu caddayn mar sii horeysay oo jariidan wareysatay John Afriq ayuu yidhi doorashada soo socota waa kala hore weyn iyo sanadka soo socota kama qayb gali karo su-aashu ninka journalist ku celinayo wuxuu yidhi aan ku noqon maayo su-aasha hore baad ii weydiisay ninka journalistkii waa nin saaxiibayiin oo markaa buu waan ognahay cid diyaar ah ma jirto meel dhinacaaga ya oo bisil ama se waay araga sidoo dooraba hoo qaaday isagu wuxuu ka meerastay wuxuu wait and see ya arag oo sug iyo samir weyn marka ujeedadu wuuna sheegay wuxuu leeyahay laakiin haddana arag buu way jirtaa dhalinyaro firfircoon oo ma garatay mas'uuliyad qaadi kara oo maanta ayaa jira dhinacayga lama hayo mana maleeyo inuu horta u diyaar yahayba inuu isagu waayo buu baabiyay waxa wixii baartigiisa rag ka soo dhibixi lahaa ama dumar ka soo dhibixi lahaa waa horaa ma garatay ay u dhamaatay oo loo dhameeyay mucaaradna kuma kalsoonaba ta kale mucaaradkii wuuba doonaya inuu sii kala qaybiyo oo isaga badda ma garatay kule kama soo qayb gali karaan ama baarti ma yeelan karaan musheekhdu ururka model ya oo wadaadadii waxaan u kala daray dibadaha ayaa ma garatay Cabdiraxmaan Bashiir oo isagu jawaabay oo ma garatay warqadaha laga haystaa anoo Canada jooga Cabdiraxmaan Good uu ka hadlay isna wuxuu leeyahay Djibouti baan joogaa wadanina aan ahay wadannimada ma qaadi kartid halgan kale waan sii wadaya giirana wuxuu leeyahay masaajidada ta meel ku qudbadaya ma jirto ninka kale soo raacay waxa weeyaan nin ma garatay aad u soo halgamay oo anigu gaarna saaxiib aad u nahay oo Cadaahir Axmed Faarax daaf loo yaqaano iyo ururka MRD ururka MRD dhibaato iyo ilaa maanta lagu soo hayaa ilaa markii Xasan Guuleed la yarxam markii Maxamed Jaamac Cilaabi oo ninkii abuuray ururkaas markii dabadeetu la geerisi dabadeed la baabiyay waxaan nagu leeyahay bulshada iyo ku xidhan tahay wixii baarti la sameeyo iyo bulshada raacaysa iyo karaamad haduu leeyahay iyo qofkaasi haduuna karaamad lahayn bulshadii u taalaa inay laga dhaxarko oo bulshada wada laakiin madaxweynuhu ma aha inuu soo ka shaqeeyo baartiga doontana gacanta soo qabo baartiga doontana gub soo garanaysid baartiga sharci ka doontana ka qaad waxa weeyaan waxan waa ummad موقف بيد رجل ليه موقف كاه هدي وكله ترتمي وكذا عادي هاي وسقوا ترتن كودياري ونظيف وياهي وسكو كلسون ياهي وإنه قلادو سيدي الشرع والشيء الدستور هنا دقي إن ملتي بارتيزم انتجرال ملتي بارتيزم إن أورو البص ما اسمه كرو أو سؤاله أماسية وحيالية يهرد كتير الشرع ويهرد دقي وهدو كله كجوابيه إنه هرجلو وحو ومت كهلا ينا ده برشة الله سعته إيه كل حدان تهي يصير يوقع ضيسو marka waxaan ku hadlayay wax macquul ah ma aha dimuqraadiyadda ma aha waa dictatorship yaa meesha loo yaala waayahay dadweynaha waxaan xasuusinaynaa in daawanaya in aad dhawaan daawan doontaan insha Allah clips ku salaysan madaxdaasi ka hadashay arinta uu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele ka shanqariyay hadaladoodii iyo waxay ka yiraahdeen iyo sidee u arkaan hadalkiisa insha Allah dhawaan baad daawan doontaan mudane Mahdi waxaynu ku sii siqaynaa gabagabadii barnaamijkeena waxaan doonaynaa inaan wax ka weydiino maadaama aad xisbigiina aad ku rajo weyn tihiin inaad talada wadanka qabataan dhawaan insha Allah
dad badan oo taageerayaal oo reer Jabuuti aad haysataan dabcan ummad badan oo Soomaaliyeed oo kale iyada qudheeda jecel isbedelka ama yani isbedelka siyaasadeed iyaguna ay taageerayaal badan idin yihiin waxa jira ummad reer Jabuuti ah oo tiro badan oo dibadaha ku nool su'aashaas hadda ka hor waan ku weydiinay ummadaasi waxay u badan yihiin dad aabayaashood ay u soo halgameen xorriyadda Jabuuti ama sidii gumaystaha Jabuuti looga saari lahaa dadkaasi waxay ku kala nool yihiin wadamada caalamka oo dhan qaaradda Yurub America Australia Asia Africa meelo badan bay ku nool yihiin waxay u badan yihiin xoogooda dhalinyar inta badan yani aabayaashood ay qaarkood ku geeriyoodeen xorriyaddii ku dhinteen qaarkood Jabuuti ku maartay ku geeriyoodeen qaarkood dibadaha sidoo kale dadkaasi waxay u jeel qabaan ama mar walba waxa raadan yihiin inay dhulkooda hooyo ku noqdaan dabcan kuma noqonayaan dhulkooda hooyo oo waxa loo diidan yahay inay noloshii qofka muwaadinka reer Jabuuti ay qayb ka noqdaan dadkaasi maxay tahay waxa aad idinku u qabanaysaan ama aad rajada aad gelinaysaan inaad dib ugu celisaan dhulkooda hooyo ama aad dib u hayaamisaan marka aad talada qabataan haddii la yiraahdo mucaarad ahaan horta iyo inta dibadda aan joogaba xiriir badan baan la leeyahay waan tagay America waan tagay Canada Europe tanada waan tagtagaa inta badan shirar baan ku leenahay diaspora-ga Jabuuti aad bay u foojigan tahay aad bay magaratay dalkooda u jeceshahay kalsooni baa ka maqan kalsoonidaana waxaa keenay ka maqnaashaha waxaa keenay in dowladdii ayna magaratay u furfurnayn ama fircoonayn inay dhalinyaro wax soo baratay ama dhaqaale la imanaysay ay wax samaysan karto oo horumar ama ka qayb gali doonto dhisidda dalka ayaa meesha taala aad baanan magaratay jeclaa inaad aad u soo dhaweysaan telefishan ahaan waayo guddoomiyayaal baa jira halkan diaspora-ga magaratay maamula bulshada aad ugu xidhan reer Jabuuti ha ahaato siyaasiyan ha ahaato hidiyo dhaqan ha ahaato magaratay gabayo ahaato oo iyaguba aad uga hadla wayna badan yihiin diaspora-gaasi aad bay isugu xidhan yihiin from America to Brussels ilaa mase Finland Sweden waxaa dhibaatada taali waxa weeyaan sidaan ku sheegayay inta ay dee xadhigu adag yahay dalkii Jabuuti uu diidan yahay uu ku dhaqmayo si ka sii xun tii gumaysiga uma maleeyo inay weli diyaar u yihiin in dadkani oo caruurtoodii halkan wax ku barteen oo ay horumar ku gaadheen oo haddii tacliim ku waayay dhulkii uu halkan ku helay oo haddii caafimaad ku waayay caafimaadkii ku helay oo haddii magaratay uu ku waayay nolol halkii uu halkan ka helay in magaratay ay maanta u diyaar yihiin iyadoo waxba hagaagin oo dhaqaalihii hoos u sii dhacayo Jabuuti oo magaratay waxa la yiraahdo gaajadii ama sii badanayso dhibaatada sii badanayso inuu isaguna isku dhex tuuro laakiin annagu waxaan u ballan qaadaynaa mucaaradka oo ogtahay guddida sare US ka tirsanahay iyo mas'uuliyiintuba in annagu dhexdeeda aan doonaynaba gaar ahaan inaan horta kuraasi siino diaspora-ga rag iyo dumar wixii matalaba kuraasa ka siino maamulka iyo talada magaratay ay nagala qayb gali karaan sida dow fiican iyo way fiican loo marin lahaa horumarka dalka iyagoonan laga dheerinin ama la odhanayn inkaar qabooyin way iga tegeen ya oo la odhanayo walaalayaal soo noqdaa ya inkaar ma qabtaane kuwii wax u soo bartay iyo kuwii dhala dhisi lahaa dalka ama nala qaban lahaa ayaa tihiin insha Allah ilaahay baa magaratay haddaan ilaahay noo garab galana waan gaari doonaa waayahay dabcan sida dhacday inta badan dowladaha Afrika ama Carabta ka dhacday kacdoon siyaasadeed baa jira oo ay abaabulkeeda ama xoogeeda ay buddig u yihiin dhalinyarada dowladda Jabuuti maadaama aad ku sheegtay inay tahay xukuumadda iminka haysata xukuumad adag oo aan isbedel ama dhalinyaro firfircoon aan doonin ma laga yaabaa in dabaylaha siyaasadeed ama duruufahaasi adag ee dhalinyarada haysata ay ku qasabto inay kacdoon ku sameeyaan dalka Jabuuti oo dal yar oo aanan qaadi karin yani baaxadaga siyaasadeed ama isbedeladaasi ama duruufahaas aan ka hadlayno taama laga yaabo inay dhacdo in dowladda Jabuuti ay dhalinyarta kala hortimaado hadday jirtaa Faisal hadday jirtaa waxa jirta ururka dhalinyarada mucaaradka oo USN Journal iyo group kale oo magaratay waxa ka iyo isugu dalada isugu yimaadaan dhalinyarada Jabuuti mas'uuliyiintuna way leeyihiin waxay leeyihiin maamul dhan bay leeyihiin haweenku maamul dhan bay leeyihiin wayna wadaan dagaalka quwadda ay maanta haystaan mucaaradku waa dhalinyarada dhibaatada badan ku dhacayso 80% ilaa 90 waxaan iminka jeelalka ku jira ama nagaar lagu xidhaya ama lagu xidho gabood ama si loo diro wax jeelasha ma garatay degmooyinka magaalada ka baxsan caasimada ka baxsan waxa weeyaan dhalinyaro waxaan maanta dhibaatada u weyn ma garatay dowladda kala kulmayay ilmaha yar ee jaamacadda dhigta ama ilmaha yar ee shaqo soo waayay
waan xuquuqaan doonaya waan mustaqbal baan doonaya mustaqbalkaygii maxaan waayey anu mucaarad baan la socday mudaaharadaya la dhibaataynaya guryaha lagala soo baxaya habeen madow loo dirayo qolo magaratay la yidhahdo commandos oo lasoo baray magaratay sida caruuraha loo afduubo iyo magaratay si loo jirdil loogu sameeyo waxaasoo dhan waan ka hadalnaa had iyo jeer waan sheegnaa 90% waa dhalinyaro wax dhibaato qabay maaha mas-uuliyiintii adduunyanihi bay arkayo waa la yar eegayaa waa laga yar gabanaya dawladda ka yar gabanaysaa haba saate waxay badan yihiin dhalinyaro marka iyaga in la siiyo waxa weeyaan maanta chanskii weeyaan ay sidii iyaguna isku maamuli lahaayeen mas-uuliyad loo saari lahaa waan la talinaa guddi samaystaan nidhi si wixii la siiyo amar ama siiyo sidii wax u fuliya ladha ay u marto madaxdoodu rag iyo dumarba ay ugu sii marto oo ay isu gaadhsiiyaan maalinta ay mudaaharadayaan sababta ay ku mudaaharadayaan iyo waxa ay u mudaaharadayaan ay ogaadaan oona faraha ay uga bixin ayaan ugu samayntaana waayahay dabcan waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena aan caawa kaga hadlaynay waraysiga aan la yeelanay wakiilka arrimaha dibadda ee xisbiga ASN mudane mahdi ibraahim good mahdi ibraahim good gabagabadii ama su-aasha ugu dambeysa ku weydiinaya waxay tahay ka mucaarad ahaan maxaad u soo jeedinaysaan bulshada reer Jabuuti ina daawanaysa caawa halkan wax badan ka faa'iiday ama wax badan kala socotay howlaha iyo isbedelada siyaasadda ka dhacaysa Jabuuti maxaad se u soo jeedinaysaan bulshada idinku xeeran ee geeska Afrika qaasatan ummadda Soomaaliyeed labaan u kala qaaday mid waxa weyn horta tan ummadda reer Jabuuti waxa adiga su'aalaysay iminka magarta arrimaha Jean Afrique waxaan leeyahay heshiiska la galay bishii December ee la kala saxaxnay dawladda iyo waxaan madaxweynuhu ku hadlay ijrada kaga hadlay waa wax kale gedisan anagu haddaan mucaarad guddidiisana way u jawaabtay adduunyanahay markaad u qabsatay bulshada Jabuuti markaad u qabsatay in iyagu aanay ka jawaabayn ama si adag uga jawaabayn waxyaalada uu ka hadlay madaxweynuhu oo ay sheegeen waliba inayna faa'iido lahayn inuu imka hadaahan waxaan ka hadlo iyadoo natiijadii laga soo gudooyin ay ka soo bixin waxaan leeyahay rajo qaba marka ummadda reer Jabuuti nala socota iyo kuwa nala socodba rajo qaba waayo waxa wacay anagu kuwii burburka dalka u baahnaa manihin kuwii nabadda had iyo jeer horumarinayaan nahay kuwii mustaqbalka ummadda u dadaalanahay laakiin dal la dumiyey ama loo jeedo in la dumiyo kuwa dhisi kara ma noqon karnaan leeyahay noo samra marka ay ma garatay raggaas haddaan wax isku afgarano haddaan isku afgaran weynaba kuwii la hor imanayay in hor keenayay in odhanayay shiciboo halkaa baan ka arrinka taagan yahay ayaa noqonaynaa rajana qabaan leeyahay waxbay nagama lumin guusha waan gaari doonaa laba ummadda soo dalalka jaarkaan leeyahay dalalka jaarka dhibaato badan baa ka taagan ama kuwa soo ka noqotaya ama kuwa shisha noqotaya waxa weeyaan haddii cadaalad jir weydo oo rajo laga ummad bulsho laga fikir waayo waxba ma dhismi karaan Soomaaliya waxba soo dhow waxba soo bislaaday uma maleeyo cisho dhowtan dibiti ay diray waa kii lixaad weeyaan Allah u naxariisto Cabdullaahi oo isagoo ma garatay soo gurigiisa ku socdo baarlamaanka ku socdo dhisana la dilay haba se ahaatee waxa weeyaan wali nabadi malaha ma arkay laakiin madaxda Soomaaliya waa inay ma garatay maanta ay fahmaan in loo jeedin ummadda Soomaaliyeed ay qaadi kareen culays inta ka sii badan dhagar inta ka sii badan iyo dhiig inta ka sii badan ayna nin kasto dibad ku nool Soomaaliya ama jiifada Soomaaliyeedna farxada waa hayn dhiigan iyo dhagartan cisho walba dhacaysa marka bal ilaahay isku sikhraan leeyahay rag mas'uuliyiintuna inay magad si daacada u noqdaan madowda kuwa agteenana dagaalaha ka socda ma garatay Soomaaliland la sheegayo iyadna faa'iido ma leh hadii dal ay doonayaan jiro ama si bulshada meesha ku nool ay mid ahaato inay ka yimaadaan waxan qabyaaladii iyo dhibaatooyinka sameynaya oo ay ku fikiraan inayna kaligood noolaan kareen geeska Afrikana ma garatay wax soo wadin kuwa jaarkana ay iska ilaalin doonaan anagu iska ilaalinayno dhibaato nool yimaadaan ama dabkooda soo dhex galo hadda reer Jabuuti na sheegay sida baan ma garto waayahay inta waxaanu ku soo afmeeraynaa barnaamijkeeni dhabka hadal aan caawa ku wareysanaynay wakiilka arrimaha dibadda xisbiga mucaaradka ASN mudane Mahdi Ibraahim Good waxa barnaamijkii inta deeynay anigu Faysal Cabdullaahi Abrone waxa xagga farsamada inaga caawinayay Saadiq waxaanu idin leenahay inta aan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh